warka inaan badiyo ma rabo waxaa aad iyo aad uga hadlay dadkii aqoon-yahanada iga horreeyay waxaan rabaa laba kelmadood kaliya inaan dhaho marka hore inaan dhaho hambalyo dhammaan dufcadaha kala duwan ama 13 ha ahaadaan ama dufcada 7 ha ahaato ama dufcada 2 oo luqadda Soomaaliga ku qalin jabisay inaan dhaho hambalyo marka xigta waxaan rabaa si gaar ah inaan uga hambaliyeeyo dadka luqadda Soomaaliga ku qalin jabiyay oo aan u arko inay tahay arrin aad iyo aad muhiim ugu ah dalkan bil xaqiiqi maanta burburkii wixii ka dambeeyay waxaad ogtahay in ummadda Soomaaliyeed in meelaha qaar uu ku yimid gaabis badan xaqiiqdii waxa ay hadda meelaha xafiisyada qaar aan ka shaqeynayno luqadda Soomaaliga markii ama sharciye la qoraayo ama waxyaabo kale ama siyaasad laga shaqeynay aad ayaa loogu dhibtoodaa marka waxaan rajaynaynaa insha Allah jaamacadda Green Hope dufcado badan oo af Soomaaliga inay insha Allah ay si wadaan rajaynaynaa inta hadda ka soo qalin jabisay oo ugu horeeyo saaxiibkay Cabdullaahi Codka waxaan leenahay hambalyo ayaan leenahay waxaan rabaa dufcada labaad oo ayagana ka qalin jabiyeen mar labaad aan dhaho hambalyo waxaan u jeedaa saaka Cabdullaahi Codka iyo Nasra Bashiir oo labadoodba annaka isku tiim aan nahay oo meesha fadhiyo u jeedaa iyo dad badan oo kale oo hadda aan arkayn laakiin laga yaabo inaan isnaqaano waxaan leeyahay inaan dhaho ayaga dhaftooda hambalyo aad iyo aad u mahadsantiin waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed dhamaanteed wixii aad soo barateen inay ka faa'iideystaan ilaahay idinkana aad noqotaan kuwa dalka ku hogaamiyo mustaqbal wanaagsan inaad noqotaan ayaan rajaynaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته